بسم الله السلام عليكم رمضان ونعكسن أمانك اللي حد يمشي رمضان برنامج كبدل الله شعلا عشان لك سو sheekaysanay habka aan kula dhaqmi karno dadka qeybahooda kala duwan dadka tayada leh iyo dadka kaleetaba maanta waxaan rabaa inaan ka wada sheekaysano edbinta nafta ama wax la yiraahdo self discipline waxaa la waa buundada u dhaxaysa yoolkaaga iyo wadada aad u marayso waa buundada u dhaxaysa yoolkaaga iyo wadada u marayso marka aad yool degsato yoolka iskama hirgelayo balse wuxuu u baahan yahay wadada aad u marayso inaad hesho wadada aad u marayso wax kaliya aad ku heli karto waxay tahay buundadaas inaad ka degto ama buundadaas aad ka leexato buundadaas oo ah inaad edbiso naftaada haddii aad edbiso naftaada buundada waad ka dhaxbaxday oo wadadii aad mari lahayd ayaad heshay balse haddaadan edbinin naftaada weli waxa ku hortaala buundo aadan yoolkaaga ku hirgelin karin marka waa yoolka iyo wadada aad u mari lahayd buundada u dhaxaysa edbinta nafta ama self discipline-ka sidoo kale waxaa la lahaa waa awood aad ku xakameynayso naftaada adigoo qabanaya shaqo gaar ah una qabanayo si caqliyeysan dhagahana ka xiranaya hadallada dadka ay ku dhahayaan kuga celiyo waa awood aad ku xakameynayso naftaada adigoo qabanayo shaqo gaar ah una qabanayo si caqliyeysan dhagahana ka xiranaya hadallada dadka ay ku dhahayaan macnaheedu waxay tahay waxa aad naftaada u xakameynaysaa ujeedka iyo hadafka aad u baahantahay in aad gaarto waxaadna u qabanaysaa shaqadan si gaar ah oo aysan dadka kale u qabanin si awoodaada ay karto ayaad u qabanaysaa sidoo kale waxaad u qabanaysaa si caqliyeysan oo smart ah ma u qabanaysa si awood badan oo xoog leh balse waxaad u qabanaysaa si caqliyeysan waxaadna dhagaha ka xiranaysaa hadallada dadkaaga imaanayaan intaa waa edbinta nafta marka haddii edbinta nafta aad taqaano waxaad awood u leedahay inaad naftaada xakamayso qabato shaqo gaar ah adigoo u qabanaya si caqliyeysan dhagahana ka xiranaya hadallada dadka marka haddii edbinta nafta aan yeesho maxay tahay wax aan baranayo maxay tahay wax aan yeelanayo ama wax igu soo biirayo sidoo kale maxay tahay faa'iidada iyo wax aad baranayso wax kugu soo biirayo waxay tahay number 1 horta inaad yeelato adkaysi inaad u adkaysato xanuunada aad ugu gudbayso buundadaas uguna gudbayso wadada oo riyadaada inaad u adkaysato challengeska iyo caqabadaha kaaga imaanaya nolosha inaad u adkaysato culeysyada kaaga soo gaaraya dadka kale ee kuugu hareereysan number 1 waxaa yeelanaysaa adkaysi sidoo kale number 2 waxaa baranaysaa in aadan isdhiibin ama aadan quus number 2 waxaa yeelanaysaa awood aad isku xakamayso naftaada inaad ka xakamayso hareeraha kale oo dhan aadan noqonin qof dhacdhac badan balse aad noqoto qof wadadiisa ku toosan marka aad ka gudubto buundada aad ugu gudbayso si aad u gaarto wadada aad u mari lahayd yoolkaaga ma noqonayso qof dhacdhac badan waxaad noqonaysaa qof isxakameeya una xakamaysan inuu gaaro yoolkiisa waxa saddexaad oo yeelanayso waxay tahay inaad isku day badan samayso haddii maanta fashil uu kugu dhaco ama wax aad samayn rabtid uu kaa qaldamo ma quusanaysid isku day kale ayaa samaynaysa aad beri ku gaaraysid marka saddex dhaqan oo aad ka baranayso edbinta nafta waxa ugu horeeya waxay tahay in aad maxay ahayd awood u yeelato inaad adkaysi yeelato waxay tahay saddexdooda in aad adkaysi yeelato number 1 number 2 in aad xakamayso naftaada number 3 in aad isku day samayso haddii inta aad rabto inaad barato waxa laga maarmaana inaad yeelato edbin nafeed edbin nafta marka sideen ku yeelan karaa number 1 waxa u baahan tahay inaad ogaato ujeedkaaga waa maxay ujeedka aad rabto inaad naftaada ku edbiso ama ku hogaamiso muxuu yahay qof walba ujeed gaar ayuu leeyahay ujeedkiisa la rabaa marka qof walba inuu ku edbiyo anaga maanta tusaale waxaan soo qaadanayna akhriska oo kale ujeedkan wuxuu yahay in aan yeelano dhaqan ama caado akhris ayaa ujeed noo ah caado akhris waa waxa la sameyn karo qof dad hore u soo sameeyeen waqti gaara aan siin karno caado akhris ayaan sameysanaynaa marka ujeed number 1 waa inaad ogaato horta ujeedkaaga waa maxay ujeedkaaga markaa ogaato number 2 waxaa u gudbaysaa plan inaad qorsheyso wixii waxaan qorsheynaynaa inteen akhrinaa intee bugaan akhrinaa sanadkii maalintiisa inteen akhrinayna intee daqiiqo intaas inaad isweydiiso number 2 waxaa isweydiinaysaa halkeen ku akhriyaa meesha aad ku akhrinayso inaad doorato sidoo kaleeto xilliga ma gelinka dambe ma gelinka hore ma habeenkii ma barqadii inaad ogaato inaad qorsheyso si guud in maxay ahayd tallaabo walba oo aad akhris ku samayn karto aad qorsheyso midda koowaad marka aan ka jawaabayno qorsheynta waxay tahay intaan akhriyaa number 1 horta waxa loo baahan yahay waxay tahay in aad buug qaadato maanta aad ogaato intee wax akhrin kartaa adiga
qof walba awood akhris u gooni uu leeyahay. dadka qaar waxay leeyihiin xirfad akhriska degdega inay si degdeg buug 2 buug 3 buug ay ku dhameeyaan. dadka qaar waxay leeyihiin akhris ay ku akhrin karaan 20 buug. dadka qaar waxay leeyihiin akhris ay ku akhrin karaan 1 buug. marka adiga inaad ogaato horta awoodaada akhris heerkee la eg tahay. marka ogaato awoodaada meesha ku buuxiso inta akhrin karaa maalintii intaasaan akhrin karaa. talaabada labaad ugu dambeysa waxay tahay halkeen ku akhrinaa meesha awooda ku akhrin kartaa gurigaaga masjidka place kale haddii aad heli karto meelaha jawiga degan oo quruxda badan aad tegi karto. sidoo kale xilligan akhrinaya buugaagta xilli ay ku habooyin ayaa jiro. aqoonyahan ayaa waxaan ka hayaa buugaagta ku saabsan cilmiga iyo aqoontu waxay ku habooyin in la akhriyo aroortii markii la soo tooso. buugaagta ku saabsan sheekooyinka qosolkii waxyaabaha waxay ku habooyin in la akhriyo duhuradii ama xilliyada barqadii iyo duhuradii oo kale. buugaagta ku saabsan jacaylkii waxyaabaha waxay ku habooyin iyagana in la akhriyo galbihii casirka kadib. buugaagta ku saabsan dhiirigelintii xogahana waxay ku haboon yihiin in la akhriyo habeenkii intaadan seexan ka hor. sababtoo intaas walahi waxay tahay habeenkii markaad seexanayso wuxuu rabaa inaad ku seexato ama waxa loogu talagalay inaad ku seexato adigoo dhiiran si aad u soo toosto adigoo dhiiran. marka talaabada labaad aad sameynayso waxay tahay inaad qorshayso. tan saddexaad waxay tahay in aad u qabato camalka si fudud ama si dib yar. xadiisu nabiga soo wariyay ayaa waxa uu ahaa ilaahay xaggiisa waxa loogu jecel yahay camalka joogteynta leh haba yaraade. halka waxa ka ogaan kartaa haddii maanta aad camalka aad bilowdo uu yaraado macnaheedu kama dhigin inaadan wax weyn qaban. wax weyn baad qabatay balse haddii aad joogteyso ilaahay agtiisana waa laga jecel yahay camalka adna guul weyn bay kugu soo kordhinaysaa. talaabada afraad ee ugu dambeysa waxay tahay inaad isqiimeyso habeen walba markaad seexanayso. maanta ujeedka aad degsatay iyo wixii aad qorshaysatay iyo camalka aad qabatay halkay marayaan maxaa idin dhaxeeyay meesha u baahnayd iyo meesha hadda joogto inaad intaa ogaato. haddii aadan isqiimeynin oo aadan qiimeyn nafeed sameynin ma ogaan kartid meesha aad kasoo guurtay meesha aad hadda taagan tahay iyo meesha u socoto. marka waa muhiim inaad sameyn karto qiimeyn waa inaad schedule sameysataa tick saartaa daily routinkaaga. marka daily routinkaaga sameysato ujeedka aad degsatay ama dhaqankii aad rabtay inaad noloshaada kusoo biiriso aad maanta jeg garayso aad jeg up ku sameyso markaas noloshaadu waxay noqonaysaa mid aad edbinteeda gacanta ku hayso. maalin walba aad dhaqan cusub noloshaada kusoo biirinayso tigna aad saarayso. balse hadalada dadka ay kusoo dirayaan ma noqonayaan kuwa markaas ku saameynaan sababtoo ah adiga ayaa ah qofka edbinaya naftiisa gacantana ku haya hogaaminta naftiisa. edbinta naftu waa xirfad u muhiima qof walba oo noolaa lagana rabo inuu yeesho haddii uu rabo inuu noloshan macno weyn ka sameeyo. aad ayaad u mahadsantihiin. maanta halkaa ayaa kusoo gabagaynayna barnaamijka bedel noloshaada. anigu cabdifataax qaasim cali ramadaan wanaagsan mahadsanidin.